kulanti wacan daawadayaal waa Muuse Xusho waxaad ku soo dhawaataan falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedyada dhex mari doona kooxaha Chelsea iyo Everton, Manchester United oo la ciyaaraysa Bournemouth iyo kulanka ugu weyn toddobaadkan ee dhex maraya kooxaha Tottenham iyo Liverpool oo Liverpool ay safar tahay. daawadayaal inoo subscribe gareeya qaybta YouTube waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. haddii aynu ku bilowno kulanka ugu soo horeeya ee galabta dhacaya waa kulan ciyaareedka dhex mari doona kooxaha Chelsea iyo Everton. kooxda Everton ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Dwight McNeil ayaa waxa uu diyaar u soo noqonayaa inuu wajaho kooxda Chelsea kadib markii uu ka soo laabtay dhaawac dhinaca jilibka ah oo aan xooganayn oo uu ku seegay ciyaartii toddobaadkii tagay ee barbardhaca la galeen kooxda Arsenal. Jared Braithwaite ayaa tababartay isaguna si uu diyaar ugu noqdo kulan ciyaareedka, isla mar ahaantana waxa uu wajihi doonaa kooxda Chelsea. Armando Broja ayaan suuragal aanay ahayn inuu wajaho kooxda iskale milkiyadiisa ee Chelsea. difaaca kooxda Chelsea ee Marc Cucurella ayaa ganax ku seegaya ka gadaal Rose waqti soo daahaya oo uu qaatay ciyaartii Axadii Brentford ay la qaateen. Pedro Neto ayaa isaguna dib ugu soo laabanaya kooxda ka gadaal ganax uu muddo ku maqnaa. Ramiro Lavia isna kulankan inuu seego oo kiisii afraad oo xiriir ah noqonaya ayaa suuragal ah, xidiganina dhaawac ayuu qabaa. dhinaca kale haddii aanu eegno ciyaar kale oo tan dhex mari doonta kooxaha kale ah Manchester United iyo kooxda Bournemouth. Manchester United tababareeda Robin Amorim ayaa sheegay Jimcihii in Marcus Rashford uu diyaar u yahay in loo soo dooran karo kulan ciyaareedka kooxda Bournemouth. Mason Mount ayaa seegi doona dhowr toddobaad ka gadaal dhaawac soo gaaray 14 daqiiqo markii ay socotay ciyaartii Manchester Derby ee kooxdiisa Manchester United ay ku adkaatay gegida Etihad. Bournemouth tababareeda Anthony Raiola waxa uu rajaynayaa in safkiisu diyaar u noqon doono si la mid ah safkii Isniintii uu ku wajahay kooxda West Ham United ee garab dhaca soo galay. Luis Sinisterra, Alex Scott, Julian Araujo, Marcos Senesi iyo xidiga kale ee Marcus Tavernier ayaa dhammaantood kasii maqnaan doona kooxda Bournemouth. dhinaca kalena haddii aanu eegno falanqeynta iyo sheekada la xiriirta kulan ciyaareedka dhex mari doona kooxaha Tottenham iyo Liverpool. kooxda Tottenham xidiga dadabka bidix uga ciyaara ee Destiny Oduji ayaa la rajaynayaa inuu dib ugu soo laabto kooxda kadib dhaawac aan xoog badnayn oo uu ku seegay ciyaartii la soo dhaafay. Timo Werner ayaa waxa uu gafay ciyaartii Manchester United kooxdiisu ay la qaadatay oo uu bukay ama bukaan uu qabay, hase yeeshee hadda dib ayuu u soo laabtay. tababare Ange Postecoglou ayaa waxa uu baaqi ku sii yahay in ay ciyaartiisa seegaan xidigaha heerka sare ee kala ah Ben Davies, Christian Romero, Mickey van de Ven iyo goolhaye Guillermo Vicario. Liverpool dadabkeeda bidix Andrew Robertson ayaa soo laabtay ka gadaal kulan ganax uu ku maqnaa oo kooxda ciyaaraheedii uu seegay dabcan ciyaartii koobka Carabao Cup. difaaca Conor Bradley iyo Ibrahimo Konate ayaa dhaawac kusii maqnaan doona oo jilibka labaduba dhaawacyo ka qaba. sheekada kulankan haddii aanu eegno Tottenham kooxda la yiraahdo ayaa badisay kaliya 2 mar oo ka mid ah 25kii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee kooxda Liverpool ay dhammaan tartamada la ciyaarto. 6 mar oo ka mid ah ayay garab dhac heshay, 17 waa laga badiyay. si waliba ha ahaatee kooxda Spurs ayaa waxa ay rajaynaysaa inay guushii labaad oo xiriir oo dhinaca gurigeeda ciyaaraha horyaalka gaarto tan iyo sanadkii 2008 iyo 2012 oo mararkaas ay gurigeeda guulo ku gaaraysay. Liverpool ayaa waxa ay kaliya hal khasaare kala kulantay 5 kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League ay booqato kooxda Tottenham Hotspur garoonkeeda, waxaana ay soo badisay 3 ka mid ah. daawadayaal falanqeynadii kulan ciyaareedyada waaweyn ee maanta ka dhacaya horyaalka Premier League intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa Muuse Xusho oo idinkaga tegaya nabadgelyo. inoo subscribe gareeya qaybta YouTube waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena.